gobolka sugan laascaanood dadweynaha ku nool gobolka laascaanood dhamaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum halkan inuu maanta taaganahay waa garoonkii kubadda cagta ee gobolka laascaanood waa dibidhis ayaa lagu samaynayaa waana la ballaarinayaa waxa aan halkan message uga dirayaa dadweynaha dhulka madaarka xadkiisa ku soo durkay lama ogola dhulkii loo asteeyay garoonka kubadda cagta ee gobolka laascaanood dhulkii loo asteeyay inuu cabirkiisu gaadho cid ku soo durugta lama ogola waana la dhisayaa marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha hareeraha ka xiga garoonka kubadda cagta ee laascaanood in ay sharciga u hoggaansamaan oo ilaaliyaan xadluleedka uu garoonku leeyahay intaasaan idinka codsanaynaa dhammaantiinna waan salaamayaa idinka iyo baxda saxaafadaba waxaan ka codsanayaa dadweynaha gobolka laascaanood in ay buluuska isgudub taagaan oo kala shaqeeyaan nabadgelyada magaalada laascaanood iyo deegaanka dhammaantiiba qof kasta oo haween iyo rag iyo dhalinyaro iyo waxgarad iyo culumaadiin iyo waxgaradka waxaanu ka codsanaynaa gobolka laascaanood in laga shaqeeyo horumarka nabadgelyada gobolka laascaanood oo gacmaha la isu qabsado wixii kale ee qof waliba ugu horeeya waa nabadgelyada marka haddii aynu horumar doonayno waynu nabadgelyadana waxaan hadalka kaga tegayaa hal la ilaaliyo xadluleedka uu leeyahay garoonka kubadda cagtu dadka hoosta ka soo galay ee soo gaaray cabirkii loogu talagalay waxa ay wixii cabasho aan la tegayaan dawladda hoose laakiin waxa aan anagu fulinaynaa oo dhisaynaa oo buluusku diyaar u yahay in xadkii loogu talagalay garoonka kubadda cagtu inuu gaadho inaanu gaarsiino haddii la ka dhigo gacan siintana waxaanu ka sugaynaa dadweynaha gobolka reer laascaanood assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu